haddaba aanu imaanno masiirka madow ee sugaya dadkaas islaamka marka la fiiriyo islaamku wuxuu leeyahay dadkaas u tuugsanaya fiiriya si ay lacag u badsadaan sida tuugsadayaasha maanta aan arkayna آخره وحسوغا مصير آدي آد أمذو سيدا ورسولك يري صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر يعني قف كدتك وحقوي ديستا أصغى إسلا يعني وحكسبا وحبطسا مال بدن كسبا أنت هذا قررسا وحقوي ديسانا يا معناها رحوله وآخرك جبن لها يعني كانوا qofkaas u tago yiri oo kale isii dhuxula waxaan raba aakhira la igu guba sidoo kale kuwaas wadooyinka dhooban ama agagaarka garoomada taagan garoomada diyaaradaha yani kuwa tuugsiga shaqada u yahay daqiiqad walba oo ay xaaladaas tuugsiga ku jiraan waxay ka dhigan tahay in ay gacmahooda ku sameynayaan dhuxulihii ay jahannamo ku dhuxulihii ay jahannamo ku guban lahaayeen wal ciyaadu billah markale sidoo kale ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa hatta ya'ti yawm al-qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu lahmin qofka tuugsada wuxuu aakhira imaan doonaa asagoo wajigiisa hal hilib aan lahayn xaaladaas foosha xun tuugsigaas uu ku jiray tuugsiga yani waa wax aad u fool xun laguna yaqaan dadka ugu xun khalqiga ilaahay karaamo iyo sharaf meel looga hadlayna weligood aanan istaagin maanta qof ajnabi ah gaal ah haduu garoonkaas ka soo tago gacmaha u taagan la xishood bayna aqoonin wala sumcad bayna aqoonin wala karaamayna aqoonin الله المستعان ودمada khaliijka yani aniga ka shaqsan waan ka warqaba طبعا waxa ka mamnuuc tuugsiga waana faldiin biyadeed la isku ciqaabayo teeda kale yani xitaa waxa jira nambaro yani degdega hotline yani aad wacayso markii qof tuugsanaya micnaha la arko waxaan u baahanay maanta micnaha waa wacyiga kow iyo in aan dadkaas aan ku taageerin dadkaas micnaha hawshooda tuugsiga yahay bal xitaa anaga inaan ku saacidin si ay jahanamo ugu ruuracmi lahaayeen hadii uu jiro qof dhab ahaantii u baahan waad qiyaasi kartaa maan ahan dadka wax weydiista arrinka cajiibka يعني دتكاس كويديسنايا ما أن كوا أباهن يعني فيريا للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا يعني دتك الصبالك حتى فيريا صبالك ربطة قفك أنا أقول أصلا أنا وركهين وحو أمالين دتك كلا كمان سوعاي أما معناها ما جرنكر أما حتى وحلقة يابا إن أمالايو يعني إني يبقى أغنيايين من التعفف سيدا يقولوا يعني حتى هذا فيرا ودمada qaar waxa ka jira hada qadar waxa ka jira micnaha taageero lagu magacaabo sanduuqa zakada oo siiyo lagu magacaabo saacidida al-usar al-mutacaffifa dad dowrsan laakiin duruufta adduunka micnaha xaaladooda ay iska adag tahay laakiin mustaxiil ah in banaanka u soo baxana ma dadku wax weydiistaan micnaha xaaladooda kafaafkaas iskaga nool kadibna la saaciday micnaha dadka masaakiinta u baahan waa dadka noocaas oo kale dadka min at-ta'affuf dadka aan waxba weydiisanaynin waliba hadda kuwa tuugsada waxay gaareen marxalad yani wax xoog u aga dadka uga qaadanayaan ku hor istaagayo hadda yani wax qasab aad u malaynayso macnaha tuugsadahaas wuxuu isku darsaday yani inuu marka ku tuugsanayo oo jahannamo oo ku mudan doono maadaama uu takasuban macnaha ama takathuran u samaynayo uu badsanayo iyo sidoo kale seefta xishoodka inuu hantida dadka ku qaadanayo macnaha qofkan inuu ka xishoodsiinayo ilaa uu siiyo هدية صدقة بحسنيسا سي أرضيدا معناها علمك برانيس أرضيدا وح برانيسا يعني حالدود أد قياس كرتا دتك آموسن أوباهن أغانتا سي دمرك معناها أن جرابك حالدود أما واوين أما حالدود أد قياس كرتا أما هويوينك واوين معناها أرامشة نمان كود أيدنتين سي دتكاس آموسن أنا دتك وحبي ويدي سنين سي هنت معناها صدقة أد بحسنيسا أما